farmaajo ju khayra ju nabadiya nolol ju nabadiya nolol ju barnaamijkan oo lagu taageerayo dawladda dhexe ee Soomaaliya ayaa wuxuu ka qabsoomay saddexda xeer qaxooti ay fadhagaxley iyo xagar dheer waxaana isugu soo baxay boqolaal kamid ah bulshada qaxootiga oo taageersan dawladda dhexe iyo madaxda sare ee Soomaaliyeed. Soomaali waa mid anagu marka qaxootigan aad arkaysiina saddexda xaro soo dadkii Soomaaliya ka imaado oo dhammaan kuma jiro ma cid kama qanbaa jirtaa qofku ku dhagay qabiil intuu kaliya soo uma kala buuxo soo isma jecladin anaga dadka dibadda jiro ee beenta dadka ku faafinay ee dadka qalaqoqobay waan ka soo horjeednaa waxaanahay mid qoraxda taagantiin ma aragtin ilmihiina dhibka haysta ma aragtin nin ilmihiisa barafka jacketka ka xirto ayaa wuxuu leeyahay anagoo reebel ma nihin waxaanahay Soomaali waxaanahay nabad iyo nolol waxaanahay nabad iyo nolol waan ku soo daalnay oday boorso qaata waan ku soo daalnay dadna la kala qoqobo waan ku soo daalnay arrintaas waxaan leenahay Soomaali waa mid halku dhigyo wadaniga iyo shucuur Soomaalinimo ayay soo bandhigeen madaxweynaheena waxaan dhahaynaa qaran jira tahay ma wadan jira tahay waxaan soo dhaweynaynaa maanta nabad iyo caafimaad dadkaygi rogmee xasuuqmay kuwa magafaha dilaayay barkood saxaraha dilaayay kuwa xabsiyada daboolan loo harka ku diiranayay dalkooda aanoonan keenin doqonow ka daa war hooy doqonow ka daa inaad kala qoqobtaa ka daa Soomaali haysaado xamidowno rubac qarni ay qaxooti ahayeen kadib waxay hadda hilow u qabaan dawladnimo iyo dalkoodii hooyo mudana madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo iyo xasan cali khayre dadka qorraxda tuban waa wadaniyiin hadalladiina bay ku soo kaceen waa dad wadaniyiin wadnahooda wuxuu quutaa hadalladaad ku dhaheyseen hadalladiina oo ahaa wadaniga maalinka la dhiirigeliyo ayaad arki doontiin waxaad maanta dhiirigeliseen wadaniyiin ilaa iyo 3 maalin arrintaa waan ka shaqaynaynay annagaa isxilqaanay annagoo dhalinyaro ah dal iyo dibadba waxaan taageersanay dawladdanada waxaan diidanahay cid kasta oo Soomaali kala qoqolayso 480 maxaabiis ah qabiil ma soo daayo lacag la gura laguma soo daayo waa wiilasha ciidan gabadhii intay oo ra'iisul wasaaraha la hadashay ayadoo qosli haddana ra'iisul wasaaraha la hadashay ilin baa iga soo daata maalinkaas midnimada Soomaaliya iyo dawlad lagu naalooda ayay ku duceysteen wadaninimo iyo wiilal isa soo horo way nin walba dalkiisa haduu asaga dhisanin daiska wax u qabsay maanta dawladda ugu baraysaa ra'iisul wasaare waxaana soo kiciyay erayadaadii madaxweyne waxaana soo kiciyay dhiirigelintaadii qorraxdaasaan taaganahay wadaniyiin Soomaaliyeed baan nahay waan idin soo soconaa diyaar baan nahay dadka xiriyaha ku jirana waa nabad iyo nolol Soomaali ha israacdo ilaahayow mid nooga dhig ilaahayow danista naga qabo ilaahayow dadka gaajada la gamira ee bahalka balolka ku jira bacyaha ku jiro ilaahayow dadka aan arkaynin ee daneysanayo ilaahayow dadka naga qabo ilaahayow qorraxdaasan ku taagna dad islaam baan nahay war wallaahi billaahi talaahi dadaan damgarin baa jira ma ogolaanayno nin dibad joogo baraf ku dhex nool intuu mikrafoon qaata inuu dhaho annagoo reebel ah waa la isku dhimi ma yeelayno maxaa dhaleen waxaan nahay midkoodhaha Soomaali waa middo Soomaali ha noolaato barnaamijkan ay soo qaban qaabiyeen qaar kamid ah dhalinyarada Soomaaliyeed ayaa ahaa mid halku dhig looga dhigay nabad iyo nolol oo hal qabsiga dawladda federaalka Soomaaliyeed maxamed baaruud xuseen warbaahinta Dadaab